cod nugu duub nambarka gaaban ee 2 oo wicitaankiisu bilaash yahay. Mustafa Warsame Sabri oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ku magac dheer Timcadde waxa uu dhigana ka qoray Afrikaanka oo uu sheegay in taariikhdooda la duugay oo la suurad xumeeyey dhibaatooyin badanna loo geystay. Dhiganihiisu waxa uu iftiiminayaa sida arrintaasi xal loogu heli karo. taariikhda asalka ah ee Afrikaanku ay leeyihiin ee macnaha badan lehna dadka loo bari karo. Arrintaas waxa uu ka qoray dhigane uu u bixiyey musiibada madow ee Afrika. waxa uu buug kale ka qoray taariikhda Islaamka oo dhibaato intaas la mid ah ay u geysteen dad kale. haddaba labadaas dhigane iyo wax laga baran karo oo ay xambaarsan yihiin ayuu uga warramay Mahad Abshir Warsame oo ku waraystay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. buugga la yiraahdo masiibada madow Afrika runtii buuggaas haddaan sharaxaad kooban ka bixiyo wuxuu ka hadlayaa Afrika markii la hadlayo ama looga sheekeynayo qof dibadda ku maqan runtii fikradda uu ka qaadanayo waxaa waaye meel gaajo loogu dhimanayo, meel faqri uu ku jiro, meel cudurro ku jiraan. marka waxaan rabay muuqaalka guud ee Afrika laga haysto inaan bedelo. maxaa yeelay Afrika waa qaarad labaad ee ugu weyn adduunyada markii la eego, marka Asia laga soo tago waa qaarad ay ku nool yihiin dad yacni ilaahay ku siiyey kheyraad dabiici laakiin ka baahan. sidoo kale Afrika waxaa ku yaala webiga ugu dheer adduunyada oo Niil ah oo ku dhawaad 12 dal oo bariga iyo bartamaha Afrika ku yaala mara. kheyraadkaasi Afrika laakiin waxay ka tahay dad ka baahan oo maalinkaas Afrika oo ogtahay gaajada iyo macluusha iyo saboolnimada runtii taas. marka waxaan rabay wajiga ay adduunyadu ka tabiso Afrika inaan bedelo oo u sheegay in Afrika tahay qaarad hodan ah, qaarad yacni ay ku nool yihiin dad qalbiga faqiirka ah laakiin muuqaalka guud aan faqiir ka ahayn. maxaa ka mid ah waxyaabaha la qariyo ee Afrika hodanka ku tahay ee adigu buugga ku sheegtay? waa qaarad natural resource ama kheyraadkan dabiiciga ah runtii waa ka buuxaan macdan hadday noqoto, shidaal hadday noqoto. gumaysiguna waxyaabihii Afrika sabab u soo galo waxa ka mid ahayd inuu kheyraadkaasi daldasho oo 1884 markuu dhacay shirkii Berlin go'aamadii la gaaro waxa ka mid ah in Afrika la qaybsado. Afrika markii la qaybsanayna dee dhaxalkooda la qaato, kheyraadkaasi dabiiciga ah la qaato. buuggaaga ma ku sheegtay taariikh ay Afrika leedahay oo la duugay oo la qariyay? runtii taariikhda Afrika oo qayb ka mid ah waa uga sheegay oo Afrika markii laga hadlayo Masar ayaa la soo qaataa iyo Nuubiyiintii waa qayb Suudaan ka mid ah, laakiin taariikhda Masar ayaa aad loo soo qaataa iyo taariikhdii boqortooyooyinkii kala duwanaa ee ku yaala Ethiopia oo boqortooyadii yani Abasiniyiinta Ethiopia runtii waxay ka mid ahaayeen taariikhaha ilaa hadda la record garay oo runtii muhiim ah. taariikhaas ayaan soo qaatay oo laakiin inta badan lama sheego, inkastoo Masar si marka u fiirisay taariikhdeedu taariikh caalami ah adduunka dhan laga wada yaqaano, laakiin taariikhaha kale oo Afrika wadamada Afrika waxaad u qabtaa inaanan awood badan la saarin. oo maxay tahay sababta keentay in taariikhda Afrika la duugo oo la qariyo? waxa keenaysa gumaysigu markuu yimaaday runtii taariikhda waa qariya. gumaysigu taariikhdu qoribaayo taariikh isagoo jeebkiisa kala soo baxay oo isagoo garanaya ayuu qoraa. tusaale ahaan Soomaaliya markuu gumaysigu yimid oo kale ah waxa uu la direeray doorka culimada iyo taariikhda, wuxuuna isku dayay inuu sameeyo taariikh iska u gooni ah ayuu rabaa. marka taariikhaha Afrika inta badan gumaysigu waa intuu duugi karo. tusaale ahaan lahjadihii iyo luuqadihii waxaad arkaysaa wadamo dhan oo lagu leeyahay wadamada afka Faransiiska ku hadla, bimacnaa waxa waaye luuqadooda iyo taariikhdooda qayb ka mid ah ayaa la burburinaya iyaguna ma ogo. marka dhibaatooyinka Afrika jiray ka mid ah oo gumaysiga noo keena. dadka ugu badan ee duugan marka yeey cidda duugta waay runtii gumaysiga kala ma yareen. gumaysi kaste siba Faransiiska inta badan wuxuu isku dayay gumaysina wuxuu ahaa gumaysi dhaqaale doon ah, gumaysina wuxuu ahaa gumaysi dhaqaale doon iyo dhaqan dooris ah. marka Ingiriiska kala ah dhaqanka ma taaba jirin oo aad u ixtiraami jiray oo mushaaraadku Talyaaniga iyo Ingiriiska mushaaraad sii jireen dadka odayaal dhaqameedka, laakiin Faransiiska waxaad u qabtaa labadaba waa isku qaadaan, dhaqaalahana waa qaadanay, dadkana luqadda Faransiiska ay ku qasbay inay lahjada Faransiiska bartaan. fursadaha aan laga faa'iideysan oo Afrika yaala maxaa ka mid ah? aniga waxaan leeyahay Afrika waxaa ka maqan. Afrika waxaa la yiraahdaa qaaradda ugu badan ee jiilka soo galaya oo sida Soomaaliya kala 70% dhalinyaro yihiin, laakiin dhalinyaradaasi waa sabool. maxaa yeelay sabool waxa ka dhigay dadka hogaamiyaasha ah. qofka hogaamiyaha ayaa framework horumarka qayb ka qaata, laakiin haddii shacabku baahan yihiin, shacabku ay kheyraad haystaan laakiin hogaamiyaashu ay yihiin hogaamiyaal baaba ah, runtii meeshaas la iska jooga. marka waxaan leeyahay fursadihii dhaqaale iyo horumarkii
waxaa curyaamiyey hogaamiyaasha afrika. hogaamiyaasha islaamka wax wanaagsan ee looga dayan karo maxay tahay ee ay rabeen? runtii hogaamiyaashii hore ee islaamka waxay ahaayeen dad ku dayasho mudan. waa dad runtii xilligay joogeen aada ugu dadaali jireen cadaaladda. tusaale ahaan xilligii yani islaamka cadaaladda ayaa aada loo qaadi jiray sida cumar bin khataab markuu ninka u yimid uu yiri yani markaad ummadda nabadgeliyday adigana lagu nabadgeliyay dee wuxuu filayay madaxweyne yani staff iyo xarun weyn oo qasriga ku jira marka waxaa la yidhi madaxweyne islaamka waa ka xagga ku hurdaya aad marka wuxuu dareemay in cadaaladdu tahay shayga ugu muhiimsan. marka waxyaabaha lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah cadaaladda. sidoo kale hogaamiyaasha islaamka waxa ay horumar ku sameeyeen cilmiga maanta sida tiknolojiyadda, sida caafimaadka, sida wax walba oo sektor kasta oo nolosha saameynaya. markaa fiirisid hogaamintoodu maxay uga duwan tahay hogaaminta dadyowga kale? runtii hogaaminta caalamiga ah oo kuwa reer galbeedka oo kale iyo tan islaamka waa laba farqiga u dhexeeya. inkastoo hogaamintu shakliga guud iska eg tahay, hogaaminta reer galbeedka waxaad u qabtaa in base ka dhigteen waxa la yidhahdo dimuqraasiga, laakiin halka islaamku uu base ka dhigtay waxa la yidhahdo shuurada waxa waaye in tala wadaag la sameeyo. dimuqraadigana waxa waaye qof kastaba inuu wax uun guleeyahay. qofkaasi looma eegayo jendarka uu yahay da-diisa, caqliyadiisa, laakiin islaamku waa ka duwanaayo. hogaamintiisu waxay ahayd shuura, in dadka caqliga u saaxiibka ah fikradahooda iyo hal abuurkooda iyo taladooda la dhageysto. runtii taasaa muddo lagu soo caanamaalay. waana laba moodal oo runtii kala duwan oo islaamka iyo wadamada reer galbeedka ah. waana wax la dhihi kara runtii hogaaminta islaamka waxay ahayd wax wanaagsan, laakiin sanadihii iyo boqolaalka sanadii ugu dambeeyey ayaa la suurad xumeeyey oo dhibaato kala duwan loo geystay. taasaa sababaysa in hogaamintii islaamka hadda laga sii tagayo oo dhanka moodalka reer galbeedka iyo wadamadan kale la qaatay. waxaa soo qaaday nidaam shuuro la yiraahdo. muxuu ku wanaagsanaa nidaamkaas? runtii nidaamka shuurada la yiraahdo wax badan oo ku wanaagsanaa. waa tala wadaagay ahayd. tusaale ahaan haddii hogaamiye la dooranayo yani shacabku qofka wax macquul ah inuu dana gooni oo ku doorto ama xamaasad, laakiin shuurada waxaa go-aan ka gaaraya tiro nambar oo la yaqaano oo dad caqli u saaxiibka ah. hogaamiyaasha islaamka waxyaabaha ay ku wanaagsanaayeen sidaa sheegtay cadaaladda ka mid ahayd, maxaa kaloo ku dari kartaa? runtii waxay kale ku mid ahayd cadaaladda. markii laga soo tago waxay aada hogaamiyaasha islaamka ugu samaysnaayeen waxay ahaayeen dad ixtiraam oo dadka kale ixtiraama. tusaale ahaan cumar ibn khataab ayaa qof waxa uu ku qabsaday go-iisii oo yuhuudi ah. marka waa ogeedeen oo wiilkiisii buu yiri ku markhaati fur, waa laga diiday. marka waxay taas caddaynaysaa inuu dadka hogaamiyaasha islaamka qofka islaamka uu yahay uu la siman yahay gaal iyo muslim cadaaladda markii la dhaho. waana sida saxda ah oo diinteena suuban iyo dhaqankeena suubanna uu sheegayo. dhaxalka wanaagsan ee ay ka tageen haddana la qariyay maxaa ka mid ah? runtii hogaaminta islaamka dhaxal fiican ay ka tageen. tusaale ahaan islaamka oo kale cumar bin khataab waa ninkii keenay in 4 sanaba mar qofku xilka uu lagu jaangooyo ah. sababtuna waxay ahayd 4 sano qofku wuxuu ku jiraa tijaabo. hadduu qofkaasi bulshada la dhacdana waa loogu daraa. haddii bulshada hogaamintiisa aysan fiicnayn runtii waa laga ridayaa. sidoo kale islaamku wuxuu sameeyey nidaamka gobolnatoreyaasha oo ah nidaamka dowladda hoose. xilliga islaamka ayaa inta badan wadamada dunida muslimka iyo dunida kale oo dhulka islaamka qabsaday labadan lagu beesgareeyey, oo ahayd in maamulka loo daadajiyo yani maamulka islaamka uusan ku ekaanin ardul xijaas ee loo daadajiyo dhulka islaamka. dowladaha la sameeyey imaarado islaami ah ama gobolnatoreyaal wakiila ah dowladda islaamka. runtii ayadan waxay ahayd fikrad aada u wanaagsan oo la jaan qaadaysa dowlad dhiska casriga. maxay tahay muhiimadda uu buuggan u leeyahay qofka akhrista? runtii buuggeyga islaamka iyo dunida waxa uu qofka u bidhaaminayaa islaamku waxa uu adduunyada kusoo kordhiyey. waxa uu dunyada kusoo kordhiyey markaan oranayo waxa weeye waxaan isaga looga horreynin islaamka oo ilbaxnimo ah oo xadaarad ah. tusaale ahaan islaamka waxyaabaha aan looga horreyn wax ka mid ah duulimaadyadan hadda adduunyada flightska nin la yidhaha Cabaas Alfarnasi ayaa sameeyey isku dayga ugu horreeyey oo bulshadan iqriiqiyiinta wadanka Morocco ah oo meelihii islaamku gaaray ka mid ah ayaa tijaabooyinka ugu horreeyay sameeyey. kaamirooyinkan iyo nidaamka dijitaalka ah iyo xisaabaadkan runtii islaamka iyo sayniska ayay udub dhaxaad u ahaayeen.
waxaasoo dhan waxaa buugga ayaan uga hadlayaa. Sidoo kale wuxuu ka hadlayaa islaamku inuu ahaa xadaaradii bini aadamka. Tusaale ahaan halkii laga soo unkamay dunida inay ahayd bariga dhexe, oo inkastoo taariikhda laisku khilaafsan yahay laakiin inay bariga dhexe ahayd ayaa laisku khilaafsan ayay caddaynaysaa. dhulkaasna waa dhulka islaamku gacanta ku hayay. Dimashq oo kala Sanca, Dimashq waxaa lagu tilmaamay inay tahay magaalada ugu da'da weyn adduunyada. Sanca ku xigta iyadana waa wadanka Yaman. runtii waxaasoo dhan taariikhdaas ayuu ka hadlayaa. Hogaamiyaasha islaamka ayuu ka hadlayaa, magaalooyinka islaamka ayuu ka hadlayaa, dhibaatooyinkii kala duwanaa islaamka soo maray ayuu ka hadlayaa. oo aan kasoo qaadan karo duulaankii salabiyiinta oo 200 sano ka badan socda, sidii duulaankii tataarka oo isagana ku dhawaad 12 dal ama 10 dal oo wadamo islaam ay cagta soo mariyeen. sidoo kale wuxuu ka hadlayaa nidaamkii gumaysiga reer galbeedka ee wadamada islaamka. sidoo kale wuxuu ka hadlayaa khilaafkii wadamada carabta iyo Israa'iil oo dunida islaamka saameeyay. sidoo kale wuxuu ka hadlayaa dhibaatada islaamka wadamada islaamka haysato oo weerarkii September 11 markii la qaaday waxaa isbedelay qab fikirkii wadamada islaamka laga qabay, oo qofka safraya islaamka xasaasiyada laga qaba iyadoo lagu tuhmayo inuu falal argagixiso iyo wax kale la shaqeysto. waxyaabaha buuggaaga aad sheegtay inaad ku qorto waxaa ka mid ah dagaaladii salabiyiinta iyo kuwii tataarka. si kooban sharaxaad bal qofka aan faham badan ka haysan dagaaladaasi waxay ahaayeen iyo dhibka ay islaamka u geysteen. runtii dagaaladaas waxay ahaayeen dagaalo waaweyn oo dunida islaamka buugaagta taariikhda ama taariikhda lagu qoro. dagaaladaasi waxay dhaceen xilliyo kala duwan. salabiyiinta ku dhawaad 200 sano ayuu socday. saameyn weyn ayuu dunida islaamka ku reebay. salabiyiintu waxay ahaayeen kristan soo bahaystay oo boqortooyinka xilligii adduunyada ugu waaweynaa ayay ahaayeen oo wadamada islaamka rabay inay soo afjaraan. sidoo kale tataariyiintu waxay ahaayeen waa dadkan mangooliyiinta loo yaqaano oo China ah. runtii ayagana waxay ahaayeen dad aad u awood badan oo sida hadda super powerka Mareykanka uu yahay ayay u ahaayeen oo waxay sameeyeen godofallo ka dhana taariikhda bini aadamka. sidoo kale waxyaabaha lagu xasuusto duulimaadaas waxay burburiyeen magaaladii Baghdad oo Ciraaq oo xaruntii Cabaasiyiinta ahayd. sidoo kale waxay laayeen dadkii ku noolaa magaaladii Baghdad. sidoo kale waxa ay gabi ahaanba baabi'iyeen taariikhdii Baghdad. waxa ku yaala maktabad weyn oo bini aadamka taariikhdiisa oo dhan islaamka kaliya ma ahayn, wixii bini aadamku soo qoro dhan lagu keedinay. ayaguna waxaasoo dhan webiga Furaat iyo Dajla ay ku shubeen. runtii waxay ahayd wax taariikhda ilaa hadda laga sheekeeyo, cilmi baaris badan laga sameeyo. webiyadaas aad sheegteen in midna qad uu noqdo midna dhiig, bal arrintaas maxay ku timid? runtii waxay ku timid midda khadka noqonaya dee waa waraqadihii la qoray. midka dhiigga noqonayana waa dadkii madaxyadooda laga guro oo dhiigga ah ayaa keenaysa inuu isbedelo. taasina waxay ahayd dee magaalo dhan oo caasimada ah dadka ku noolaa kara waa qiyaasi karta oo xadaaradda islaamka ah.